daawade ma ku dhiban tahay inaad adeeg ka dalbato onlinada caalamka se dhib ma ka haysataa cidii ku soo qaadi lahayd alaabtaasi shirkadda online suuq ayaa soo kordhisay adeegyo cusub oo la xiriira alaab soo qaadista waxaan wada sheekaysi la yeelan doonaa mulkiilaha shirkadda online suuq oo bay noo sharaxi doontaa adeegyada ay soo kordhiyeen ayna marsha website-ka online suuqa hadda inoo diyaar ah waa website u saamaxaya macmiilka jooga dalkii iyo dibadahaba sida Europe iyo Mareykan iyo meelaha Canada inuu si xor ah uga adeegsado meel walba uu rabo tusaale ahaan qof baa inoo jooga dalkii jooga Hargeysa ama kaba soo qaad Muqdisho kale qofkaas wuxuu rabaa inuu meherad Mareykan ku dhex taala inuu wax ka iibsado website-ku ka helaya adeegaas macmiilku markuu galo website-keena online suuqa.com waad galaysaa waxa ku soo baxaya shaashadaas waxay kugu horanaysaa dalkee ayaad rabtaa inaad ka iibsatid dabeetana dalkii baad taabanaysaa tusaale ahaan waxaan rabaa inaan Dubai wax ka iibsado Imaaraadka markaad Imaaraadka taabatid waxa ku soo baxaya inta dukaan ama inta meheradood Imaaraadka ku dhex taala aad wax ka iibsan kartid online suuqna kugu keeni kara meesha aad joogtid waa sidan aan kugu sheegay hadda Amazon oo kale waxay hoos yimaadaan Mareykan iyo waxay hoos yimaadaan maxaa la yiraahdaa Imaaraadkaba Alibaba kale wuxuu hoos yimaadaa dalka China hoos yimaadaa tusaale ahaan qofkii wuxuu rabaa inuu China wax ka dalbado website-ka Alibaba kale markuu website-ka galo Alibaba ka dhex tooranaya dabeetana linki alaabta uga baahnaa Alibaba ayuu ka eeganaya alaabtaas meesha kaga jirta Alibaba nala soo wadaagaya WhatsApp numberkeenu noogu soo diraya alaabtaas aan u baahanahay wakana linkigi Alibaba ku dhex jirta iyo qiimeeya iyo waqtigeegu imanaysa insha Allah adeega noocaas oo kale waan bixinaa tusaale ahaan qofkaas markuu qofka dibadda joogay alaabta ayana la soo xiriiraya WhatsApp numberkeenu kula soo xiriiraya ku yaala Facebook page-keena ama website-keena uu noo soo sheegay alaabtu waxay tahay noocay tahay meeshay taalo qofka loo dirayo halkuu joogo ma Hargeysa jooga ama Muqdisho jooga ama Puntland jooga dabeetana waan u manage garan karnaa marka qofka dibadda jooga laga rabaa inuu mar walba nala soo xiriiro online suuqa horta website-kii aan in badan ka shaqeynay baa hadda inoo diyaar ah website-kaas wuxuu ka fargareynaya ama wuxuu ka caawinayaa Soomaalidu meel walba ay joogto haday tahay Soomaaliya Somaliland Djibouti ilaa iyo Soomaalida Ethiopia wax walba uga baahan yihiin dalka dibadiisa inaan u keeno talabaad waxa dad badan oo dibadaha ku nool sida Europe haday tahay Mareykan haday tahay Canada Ingiriiska oo alaabaha aan ku dhex iibino page-keena aad u xiiseeya kuwaasna waxaan u sameeynay inay iyagu si toos ah uga iibsan karaan website-ka online suuqa ee hoos yimaada dalka Hong Kong ee xitaa payment-kiya lacagaha ee Visa card iyo credit card ku bixiyaan online suuq basically waxay ka shaqeysaa 5 dal bay ka shaqeysaa waxa ugu horeeya dalka China waan joognaa Hong Kong alaabo waan ka keenaa Dubai waan joognaa Mareykan iyo Ingiriiska 5 dalba si toos ah alaabaha uga keeni karnaa waxa macmiishu aad bay ugu xidhan yihiin page-keena online suuqa Instagram-keena online suuqa iyo website-keena onlinesuuqa.com iyo WhatsApp numberka intaaba waad nagala soo xiriiri kartaan xafiiskeenu wuxuu ku yaalaa Hargeysa oo headquarter-ka wuxuu ku yaalaa fooqa Seeraar Deera Mall ka dambeeya tabaqa labaad office 309 waan joognaa mar walba dadkeenu horta online hadda aad ugu cusub yahay waliba online shopping haday tahay anaka online suuq ahaan waqti dheer baan ku jirnay suuqa muddo 5 sanadoodba waan ku jirnay intaas oo dal baan u shaqeynaa aan xafiisyo ku leenahay Geeska Afrika haddaan hay online suuqa mar walba macmiilku waxaan ugu ballan qaadnaa in alaab tayo leh ay soo gaadho alaabta uu dalbaday sidee u dalbaday oo talab qurux badan uu soo gaadho marka mar walba waa risk free bay ka tahay xagga macmiilka alaabteena mar walba waxa la socda insurance-kiiba la socda wax ka halaabi kara wax ka xumaan kara ma jiri karaan totally hibo online suuq muddo waxay furantay hadda laga joogo 5 sano sax mustaqbalkii laga bilaabo online suuq ama business walbo online ku shaqeeya oo laakiin si fiican u asaasan waqtigan xaadirka ku leeyahay mustaqbal aad u ballaaran waayo dunidii baad isku wada bedeshay hadda online caafimaadkii hadda online noqday jaamacadii online noqday waxbarashadii shoppingkii ganacsigii marka online ku haduu si fiican u asaasan yahay khaasatan online suuqa mustaqbal aad u ballaaran baa leenahay insha Allah geeska Afrika oo dhan insha Allah way hibo
sida wadaagsoonay teknolojiyada haweenka aad uma badna si fiican adiga maxaa ku saamaxayaa teknolojiyada ashqada ka dhigo horta background-kaygu engineerad baan ahay marka aad baa iskugu fiican xagga technology-ga at the same time-na wax caqabado badan ma garanaysa kalamaan kulmin waayo hobbigaygayba tahay online shopping-kana waxaan ka mid ahay dadka laftarkooda aad ugu badan ma ogtahay wax walba anigu online baan ku iibsadaa wax walba markaan iibsanayo si fiican baan uga baaran degaa marka waxaan isku dayaa mar walba alaabta aan soo dhigayno online suuqa website-yadeena in aan noqoto alaab aan si fiican u baarnay aan si fiican uga baaran degno waayo anigii baa dee qof online ahaan ku shaqaysto hibo bal maxaad maalin walba ku dhiirigeliyo maadaama aaladii teknolojiyadu mar kastama soo isbedelaysaa si kale noqon karaysaa iminka waxyaabaa u badanaa iminkaad saad sheegtay waxaa tiri online baan ku iibsadaa iminka waayahay maxaa ku dhiirigeliya subax kasta aad soo kacdo waxay dhiirigeliya subax kasta aan soo kaco waxa weeyaan in aan mar walba isku dayo in bulshadeena ku nool dalkii ay helaan adeeg walba oo dibadaha laga helo maadaama aan ogahay qof qurbaha kasoo guurtay qurbo joogna ahaan jiray waxyaabaha aan miskareynay ama aan xiiseynayo markaan dalka iman jiray berigii hore waxay ahayd inaan alaabaha qaarkood aan ku heli karin online marka dad badan oo weligoodba ka bixin dalka way jiraan oo laakiin xiiseeyay laftarkooda inay dibadaha bal yaa marna geeli lahaa oran lahaa suuqaas soo xaaban lahayd marka mar walba waxay dhiirigeliyeen inaan ka fargareeyo ama inaan ka warhayo baahida dadkeena haysa xagga suuqyada caalamiga hibo imsa wadan bal xafiis ku leeyahay hargeysa waxaan ku leenahay 2 xafiis oo mid ka mid yahay kan hadda joogno ku yaala fooqa Seeraar muqdishona waxaan ku leenahay xafiis oo wuxuu ku ag yaala Mubarak Hotel albaabkiisa saddexaad weeyaan Djibouti-na haddaan xafiis aad weyn oo ballaaran furayna laakiin waa la jooga Djibouti alaabaha toos baan u gaarsiinaa Jigjigana waan ku leenahay xafiis badda cas marka intaas oo xafiis baan leenahay